qaraxan ayaa maanta waxa uu ka dhacay meel ku dhow isgoyska kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaan Biyadega inta la xaqiijiyay qaraxani waxa ku geeriyooday laba ruux oo mid kamid ah uu ahaa ninkii kaxaynayay gaariga uu qaraxu haleelay markii uu qaraxu dhacay kadib ayaa goobta waxa soo gaaray ciidamo ka tirsan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda dawladda ku meel gaarka Soomaaliya gaariga qaraxu qabsaday wuxuu ka burburay qaybta hore inkastoo qaybaha dambe uu ka roon yahay intaas kadib waxa goobta soo gaaray saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda gaar ahaan qaybta miina baarista kuwaas oo hawlo miina baarista ku sameeyay gaariga uu qaraxu haleelay inkastoo natiijadii ka soo baxday aan saxaafadda loo sheegin gaadiidka gurmadka degdega ayaa goobta soo gaaray inkastoo uusan halkaas ku arkin dad dhaawac ah oo u fidiyo gurmad caafimaad haweeneydani waxay ururinaysaa hilbaha qaar kamid ah dadkii ku geeriyooday qaraxaasi oo goobta looga tagay gaariga qaraxa lagu soo xiray oo noociisu ahaa nooca raaxada ayaa wararku waxay sheegayaan in ninka kaxaynayay uu ahaa nin la yaqaan oo ganacsada ahaa markii ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ay goobta soo gaareen ayaa waxay sameeyeen howlgallo ballaaran oo ay ku baadigoobayaan qaabka uu qaraxu u dhacay iyo cidda ka dambeysay waxayna gacanta ku soo dhigeen ilaa 5 ruux oo looga shaki qabo inay ku lug leeyihiin qaraxaasi 5 ruux ee ciidamada dawladda ku meel gaarka gaar ahaan nabad sugidda iyo booliska ay gacanta ku dhigeen ayaa sida la sheegay waxay ka howlgalayeen geerish sida la sheegay uu ka soo baxay gaariga qarxay saraakiisha ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo goobta soo gaaray ayaa dhamaantood waxay sheegeen inay baaritaano wadaan isla markaana baaritaanadu ay la dheeraadeen dhawaana ay saxaafadda uga warbixin doonaan qaraxa maanta ka dhacay nawaaxiga isgoyska kiiloomitir 4 ee Muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaan Biyadega ama Labaajada ayaan ahayn qaraxii ugu horeeyay ee noociisa ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho waxaana qaraxyada lagu soo xiray gaadiidka ay ku soo badanayaan Muqdisho tan iyo markii ururka Al-Shabaab guud ahaan laga saaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Harun Yusuf Maxamed idaacadda TV-ga Risaala isgoyska kiiloomitir 4 magaalada Muqdisho